saddexdii nin ee nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyagoo socota ayaa god buureed bay markaa ayay ka galeen baledhaxan ama roob ama cadow dhagax weyn baa markaa buurta ka soo shalwaday deedna buurta godkeygii buu dhagaxii xidhay waa saddex nin halkaasay ku jiraan markaasay cid ku ogi meeshaa ma jirto ilaahay unbaa ku oga cid kale kuma ogo markaasay isla hadleenoo waxay sidhaahdeen maanta halkaa cidini badbaadin kartaa ma jirto ilaahay mooyaane bal nin walow camalka aad isleedahay camalkaasaa maalinta aad ilaahay dartii u qabatay oo maaragtaane camal saalixa oo ikhlaas ahaa aad isleedahay bal maanta ku alla bari buu yidhi halkaa camalka ha kaa badbaadiyo maantaas kii u horreeyey baa markaa ducada bilaabay waa camalku nin walba ugu rajo weynaa uu islahaa camalkaasaa maqbuul ahayoo ilaahay kaa aqbalay oo ikhlaas ahaa kii horreeyey baa ducadii furfurto wuxuu yidhi yaa rab waad og tahay laba waalid baan lahaa oo da' waaweyn labadaa waalid iyakoon caanaha siiyoon waraabiyo mooyaane ciyaalkayga cunto iyo caana ma siini jirin habeennada ka mida xoolihii markay soo hoydeen een caanihii uga soo maalay ayaan caanihii la dul imiday waxaan arkay labadii waalidoo hurda ayaan arkay markaasaan gorofkii caanuhu ay ku jireen kor baan u qaaday ciyaalkayga iyo awlaadaydiina jilbahay haystaan waxay leeyihiin aabba caanahana sii markaasaan ku idhi nisiini maayo labadaydaa waalidoo horta iyaka aan siiyo mooyaane iyakana kicini maayo ilaa iyagoo hurdada ka soo kaca mooyaane habeenka oo dhan baan la dul taagnaa gorofkii caanaha ubadkaygina lugahay ay haysteen waagii markuu dhowaaday inuu baryo ayay labadii waalid hurdadii ka soo kaceen markaasaan gorofkii caanaha iyo kii siiyey kadib baan ubadkaygii siiyey ilaahow maalinkaa haddaan labadayda waalid aan sidaa ugu yeelay inaan adiga kugu raalligeliyo ilaahow dhibaatadaa maanta aan ku jirno adaa naga saari karee ilaahow dhibtaa naga saar buu yidhi markaas rida rabbi fii rida alwaalidayn deedna markaa dhagaxii uu dhaqaaqay kii labaad baa layidhi hay adiguna ducee isaguna ducadii buu bilaabay yaa rabbi waxaa jirtay gabadh ina adeertaya oo aad u qurux badan gabadhaas intaa oo jeer baan shokaansaday way iska kay diidday inaan xumaan u geysto beryaha ka mida abaar baa dhulkii ka dhacday anigoo hanti badan haysta ayaa xilligaa abaareedku ku soo hagaagay ayadoo baahan bay ii timiday markaasaan ku idhi waad og tahay inaan aad kuu jecelahay berina waad i diidday maanta baahi baa ii kaa keentee qolkaa ina geliyo deedna waxaan doonaan kugu samayni kadibna waxaad doonto xoolo anigu waan ku siini baahidii ii keentaa markaa gabadhii waa iska oggolaatay baahi baa jirto abaar baa jirtay qolkii markaan la galay ee labadeeda lugood dhexdeeda aan fadhiistay halkaasina waa meel adag weeyaan ayay igu tidhi yaa ayuharajul war addoonkan ilaahayow ilaahay ka baqo farjigayga xaaraan ha ku jabin bay igu tidhi xaaraan yaa markaan maqlay ilaahay ka baq markaan maqlay halkaasaan ka soo noqdoo ka kacay cabsidaadaan uga soo kacay maradii baan saaray iyadii deedna waxay xoola doonaysay oo dhan ayaan intoon u buuxiyey ayaan sabootiyey haddii maalinka cabsidaada halka aan ugaga soo noqday ilaahoo dhibaatada aan ku jirna maanta naga saar buu yidhi dhagaxiina uu dhaqaaqay kii saddexaad baa lagu yidhi adiguna ducadaadiiba hadhee ducadaada bilow isaguna ilaahay buu baryo wuxuu yidhi yaa rabbi waad og tahay addoon waxaan ahay dad badan shaqaalaysiin jiray dad badan baa ii shaqayn jiray maalin maalmaha ka mida markaan mushaarkoogii aan siisiinayay mid ka mida ayaa mushaarkiisii inuu qaatay iska diiday beri dambo abaari ay dhacday ayuu ii yimiduu yidhi war berigaa lacag baan kaaga tegay mushaarkaygiiyo mushqaayadaydiiyo isii markaasaan ku yidhi xoolaha maad arkaysaa waxaasoo geela waxaasoo lo'a waxaasoo adhiya adiga iska leh qaado markaasuu qaadan waayo wuxuu yidhi war maad igu dheeldheelaysaa abaar baa dhacdee oo adduunkii waa la kala guuree mushaarkii yaraan kugu lahaa iska kaysii markaasaan ku yidhi may kugu dheeldheeli maayo lacagtii berigii aad ka cadhooteed ka tegtay shirkadayda kambanigayga ayaan sheerkaaga dhigon kuugu daray wallaahi xoolahaasoo dhan adaa iska leh kaxayso markaasuu farxay uu duceeyey yaa rabbi buu yidhi kiina haddaan addoonka xaqiisii sidaa aan iskaga ilaaliyey anigoo adiga kaa cabsoonaya ilaahow dhibaatada adaa naga saari karee ilaahow dhibaatada naga saar buu yidhi dhagaxii uu dhaqaaqay saddexdood iyagoo nabad qabe halkii ka soo baxeen